السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برشادة لقادة Python Introduction to Python Programming. marka hore waxaan isweydiinaynaa intaanan Python aadin waa maxay programming. waxaan kasoo qaaday definition-kan sida aad u jeedaan website-ka khanacademy.com. wuxuu ku qeexayaa programming is the process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a task. si kooban wuxuu leeyahay waa qaab computerka loogu sheego wixii uu qaban lahaa iyo sidii uu u qaban lahaa. maxaa loo dan leeyahay? tusaalooyin haddii aan ka bixiyo, halkan waxaa yaalo program la qoray. waxa uu programkan sheegayaa, waxaa lagu qoray luqadda la visualbasic.net. waxaan tirada badan iska ignore gare. messagebox.show welcome to programming messagebox buttons.ok messagebox icon.information. intaan yarta ah waxay u sheegaysaa computerka inuu soo saaro message box waxa la ama dialog box, daaqad yar oo qoraalkan uu ku qoran yahay dhexda. qoraalkan uu ciwaan u yahay button la yiraahdo okay uu hoos ka yaalo, icon information loogu talagalay muujinayana uu soo muujinayo. koodka yarka markii aad rangareyso wuxuu ku soo saari doonaa shaashada sidan u muuqanayso. waxaan computerka u sheegay marka waxay soo saartaa shaashad yar ama daaqad yar oo qoraal ku qoran uu noqonayo welcome to programming sida halkan aan ku qoray. programming ciwaan uga dhig. waxaad u yeeshaa hal button oo okay ku qoran tahay sida halkan kaaga muuqanayso. waxaad u yeeshaa icon noociisu uu yahay information. noocan ayaa la information. mar computerkii ayaan waxaan faray wuxuu samayn lahaa iyo siduu u samayn lahaa. haddii aan ku siiyo tusaalooyin kale, waxaa halkan aan furay website-kan waxaan rabaa inaan ku qoro code. luqadda halkan kaaga muuqanayso magaceeda SQL lahaa. SQL statement ayaan rabaa inaan halkan ku qoro. waxaa halkan ku xareysan database waxa la database-ku table ayuu leeyahay. tayballadan waa meel loogu talagalay xog ayaa ku xareysan. xogtan ayaa waxaan rabaa inaan ogaado ama arko. tusaale, table ka mid ah tableska waxa la customers sida halkan kaaga muuqanayso. waxaa ku jirta uu leeyahay 92 record ama 92 customer macluumaadkooda. haddii aan rabo macluumaadkaas inaan soo saaro, tusaale ahaan luqadda uu yaqaano ah SQL ayaan kula hadlayaa. waxaan leeyahay waxaa ii soo saartaa dadkaas macluumaadkooda. tusaale, waxaan leeyahay sidan select star from customers. now customerska table-ka la customers dad ku jira macluumaadkooda oo dhan ii soo bandhig waa intan. haddii aan dhaho itus run SQL aan leeyahay tusaale ahaan, haddii aad fiirso wuxuu ku tusayaa dadkii macluumaadkooda oo dhan ayuu ku tusayaa. haddii aan rabo waa sii filter garayn karaa, waa sii yarayn karaa. select star from customers waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaan rabaa dadka magaalada ay degan yihiin. halkan waxaa ku yaal customerkii ID-giisa, magaciisa, contact name, address, city, postal code, country. haddii tusaale ahaan ay ku jiraan dad magaaladoodu ay tahay magaalo aad taqaano sida Muqdisho, London, New York iyo wixii la midka ah soo bandhig ayaan leeyahay. waxaa ku jira hal qof aan ku daray macluumaadkiisa. waxaan leeyahay tusaale ahaan where city is equal to Mogadishu. waxaa ii soo saartaa dadka magaalada ay degan yihiin ay la eg tahay Muqdisho ama ay tahay Muqdisho. dadka Muqdisho degan ii soo saar macluumaadkooda way adiga si kooban. luqad uu yaqaano SQL ayaan ugu sheegay. wuxuu ii soo saar haddaa fiirso hal qof oo la Cabdifataax Jaamac, Maxamed Jadiid,
muqdisho degan Soomaaliya. waxaan kula hadlay computerkan u sheegay waxaan rabaa inaad ii soo saarto qofka magaalada muqdisho degan. magaalo kale aan ku qoran tusaale ahaan haddii aan dhaho London, haddii aan ku celiyo wuxuu ii soo saarayaa dadka London degan. maxaan dhahnay marka programming waa qaab computerka loogu sheego wixii uu qaban lahaa iyo siduu u qaban lahaa. waxaan marka baranaynaa sida aan sidan oo kale ugu sheegi lahayn. luqadii hore soo aragnay waxay ahayd Visual Basic.net, tan luqad la yiraahdo SQL waaye. bal aan fiirino Python iyaduna siday noqon doontaa. waxaa halkan ku qoran code lagu qoray Python aan ku diyaariyey import numpy as nb, import matplotlib.pyplot as plt, magac equals magacya halkan gelini, mushaar equals dad ayaan magacyadu ku qornay tusaalahaan shaqaale iyo qof walba mushaarkii uu qaadanayay. kabacdina waxaan dhahnay macluumaadkan waxaad ka soo dhigtaa charti adiga oo x iyo y kala siinayo magacyada iyo mushaarka. kabacdina waxaan dhahnay chartigi soo saar. koodkan haddii aan sidii hadda oo kala dhahno run, haddii aad fiiriso koodkan markaan ran garayno wuxuu inoo soo saarayaa charti sidaan u yaallo. wuxuu ku tusayaa asset meeshii lambaro ay halkan noo ahaayeen, wuxuu ku tusayaa asset oo graph ahaan bar chart wax la kugu soo boqonaya ama column chart kii aad dhahdo. wuxuu ku tusayaa asset inuu 400 yahay mushaarkiisa, Cabdullaahi mushaarkiisu uu yahay 250, ayaan 550 iyo wixii la midka ah. dhowr sadar oo aan qornay oo computerka aan u sheegnay siduu wax u qaban lahaa iyo wixii uu qabtay ayaa halkan kaaga soo muuqanayo. marka haddii aan ku celiyo definitionkii waxaan dhahnay waa qaab computerka loogu sheego wixii uu qaban lahaa iyo sidoo kale siduu u qaban lahaa. marka amaradaas iyo instructionskaas aan computerka siinayno ayaa waxaa la lahaa programming inaan computerka instructions siino ama aan wax farno. waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina. intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.